ninku markuu dilayo ninka kale raadkiisu yaqaan caruurtiisu yaqaan gurigiisu yaqaan waa dad isla wada dhashay laakiin waa dad shaydaan ka shaqeeyey dad shaydaan ka dhex shaqeeye weeye waxaan leenahay ha la joojiyo colaadda halkaa ka socota ha la joojiyo annagoo ah golaha dhaqanka beesha maxamuud hiraab aad iyo aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay arrintaas muddada socotay ilaa haddana wax isku daya oo dhinacyada aan soo sheegnaya oo miro dhalihi aysan jirin waxaan leenahay walaalayaalow colaadda ha la joojiyo colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho ways yaqaanaan dadku waxay isku yaqaanaan derisnimo waxay isku yaqaanaan wanaag waxay isu yaqaanaan ehel maanta markuu dilo walaalkii berri waa ka qoomamaynaya waa ooyayaa waxa weeye walaalayaal ha la joojiyo colaadda labadaa beelood ka dhex dhacaysa ha la joojiyo bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين annagoo ah guddiga dhaqanka beesha maxamuud hiraab aanan ahay afhayeenkii guddiga dhaqanka beesha maxamuud hiraab waxaan maanta rabnaa halkan inaan ku qabanno baaq nabadeed inaan soo jeedinno ama aan fariin bayaan nabadeeda aan dirno annagoo ka hadlayna arrimihii dhacayay bilihii la soo dhaafay ama beryihii la soo dhaafay ka dhacayay deegaanka beeshu ay degto iyo deegaanada ku hareeraysan oo beelaha deris wadaagta ay yihiin ay degaan oo walaalaha ay yihiin dhacdooyinkaasoo tii ugu horreysay ay dhacday 9kii bishii 10aad 2025 ay ka dhacday meesha la yidhaha baalal dheer oo ah deegaanka beeshu ay degto taasoo ay ku dhinteen 3 hooyo iyo 3deeda gabdhood ay ku dhinteen waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhacdadii labaad oo ku xigtay oo iyaduna dhacday 2 bishii 11aad 2025 kana dhacday deegaanka guudoole ee ah meesha ay iska saaran yihiin labada beelood ee maxamuud hiraab iyo reer xaaji saleemaal ayna ku dhinteen hooyo waayeel ah kuna dhaawacmeen hal qofna uu ku dhaawacmay meesha wiil uu ku dhaawacmay reer xaaji ah mid ah raggii meesha ku soo qaaday weerarka dooxatada ahaana nin ka midihina uu ku dhaawacmay dhacdooyinkaas meelaha ka kala dhacay waxaa ugu dambeeyey dhacdadii xigtay oo ka dhacday dhaqayaboor oo ah gudaha beesha maxamuud hiraab ayna ku dhinteen 3 nin oo ka tirsanaa beesha maxamuud hiraab ayna ku dhaawacmeen 8 qof oo beesha maxamuud hiraab ka tirsanaa iyo hal qof oo ka tirsanaa beesha reer xaaji saleemaal 9kaas qofood ay ku dhaawacmeen dhacdooyinka noocaasa oo isdaba xigxigay oo fal shaydaan ah oo fal xun ah oo fal aanan raalli ka ahayn ah oo fal u qalma deegaankeenna ama dad muslimiina inay ka dhex dhacaan ah ayaan maanta rabnaa inaan halkan ka soo jeedinno baaq nabadeed walaalayaal waxaan leenahay intii dhacdooyinkaa isxigxiga ku dhimatay allah u naxariisto intii ku dhaawacantana allah u boogadhayo reer xaaji saleemaal iyo reer maxamuud hiraab waa dad aan kala guurayn waa dad isla dhashay waa dad isku deegaana waa dad iswada yaqaan ninku markuu dilayo ninka kale raadkiisu yaqaan caruurtiisu yaqaan gurigiisu yaqaan waa dad isla wada dhashay laakiin waa dad shaydaan ka shaqeeyey dad shaydaan ka dhex shaqeeye weeye waxaan leenahay
هلا جوجيو colaadda halkaa ka socota hala joojiyo dadka deegaanka intooda ahlul cuquulka ah ha u kaceen in la joojiyo dadka labada deegaan kala degan intooda ahlul xal wal aqdiga ha u kaceen culimadu ha u kaceen oo ha ka hadleen odayaasha u kaceen oo ha ka hadleen maamulada meesha ka jira ha u kaceen oo ha ka hadleen cid walba ee ma garanaysaa arrintaasi ay khusayso ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsadeen hala joojiyo qurba joogta iyo wadan joogta intuba ha u kaceen labada beelood walaalaha ee dhiigooda uu qabanayo si lagu joojin lahaa dhiigga meeshaas ka socda labada beeloodba ha u kaceen annagoo ah golaha dhaqanka beesha maxamuud hiraab aad iyo aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay arrintaas muddada socotay ilaa haddana wax isku daya oo dhinacyada aan soo sheegnaya oo miro dhalihi aysan jirin waxaan leenahay walaalayaal colaadda hala joojiyo colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho ways yaqaanaan dadku waxay isku yaqaanaan derisnimo waxay isku yaqaanaan wanaag waxay isku yaqaanaan ehel maanta markuu dilo walaalkii berri waa ka qoomamaynaya waa ooyaya waxa weeye walaalayaal hala joojiyo colaadda labada beelood ka dhexdhacaysa hala joojiyo annagoo ah golaha dhaqanka beesha maxamuud hiraab waxaan ku baaqaynaa wakiilna ka ah beelweynta maxamuud hiraab waxaan ku baaqaynaa nabad waxaan ku baaqaynaa xal degdega oo arrintaas laga gaaro cid alle ciday khusaysaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muqdisho general hospital waxaa diyaar kuugu ahaa dhakhtarka daaweynta qaliimada iyo kabidda lafaha dr cilmi yuusuf oo ah qabiir ku takhasusay xanuunada ku dhaca lafaha lehna khibrad in ka badan 30 sano haddaba si aad u bogsooto la xiriir dr cilmi oo diyaar kuugu ah muqdisho general hospital nasrudiin baarubax